gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xafiiska wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka ayaa maanta kormeer ku gaaray dugsiga sare ee Sheekh Cismaan Nuur ee magaalada Burco. ujeedada kormeerkan ayaa ahayd mid uu gudoomiyuhu ku wacyigelinayay ardayda dugsigaasi diiwaangelinta madaniga ah. waxaanu gudoomiyuhu ardayda uga warbixiyay muhiimadda ay leedahay qaadashada kaararka madaniga tahayna in aan la gelin muran siyaasadeed. maanta waxaan ku bixi anaga nabadgelay dalkana inuu magac yeesho u baahna magac Soomaaliland baan loo baxna waynu haysanaa Soomaaliland dad astaamay leedahay calankii waynu taagnay golayaashii waynu dhisanay wax badan baynu day isu keenkeenno kaasoo ma ciidankeeni waxaan waa dhanyi laakiin maxaa Soomaaliland lagu noqdaa geedi socodkan iyo arrimaha siyaasadda wax badan laga khalkhaliyay waxayna khalkhaliyay wax weey waraaqaheeni ay dhiga ahaayeen aqoonsiga ahayd maxaa inaad Soomaaliland tahay marka lagu weydiiyay aad la soo baxaysay ee lagu aqoonsanayay kulku siyaasadna laga galo waa guuldaro maanta waxa la yiri waa in kaarkii la qaataa kaarkeeni dhalashada qaadana oo ubadiyo aad qaadataan maxaa qaadanaysaan waxa kaaga xidhmaya ilaa guurku inuu kaaga xidhmaa suuragal waxa kaaga xidhmaya imtixaankii waxa kaaga xidhmaya aqal dhisashadii waxa kaaga xidhmaya gaari wadashadii waxa kaaga xidhmaya ya intii wax loo baahan yahay oo dhan waxa kaaga xidhmaya wadada aad marayso wax dhacaan lagu joojiyo leeyahay aqoonsiga keen geesta kalena waxa uu gudoomiyuhu booqday dadkii wax ku yeeloobay shilkii baabuur ee dhawaan ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Burco waxaana xaaladooda caafimaad uga warbixiyay agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Burco Dr. Cabdiqaadir Murqliqe kuna tilmaamay xaaladooda mid ka soo fiicnaanaysa sidii hore. gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye ayaa la filayaa inuu kormeer wacyigelineed ku maro inta badan dugsiyada gobolka Togdheer.